ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوديال كسر هذا قناة كابولين waxaa codsanayaa haduusan subscribe ku haynin waa inaad subscribe inoo saartaa waxba ka dhibime laakiin aniga wax badan ayay naga caawinaysaa. casharkan waa casharkii saddexaad ahay making practice, how to make practice. laba cashar oo kale ka horeysay. Marka casharkan wuxuu ku saabsan yahay conversation between two people. laba qof ayuu ka dhaxeeyaa oo magacooda la kala dhaho Ali, Aisha iyo Ali. way hadlayaan su'aalo is weydiinayaan. casharkan aad buu waxtar aad u leeyahay maahan horfaayinkii maahan waa cashar yani si aad iyo aad waxtar u leh. okay hadal yaan ku daalin aan bilowno marka casharkeena aan guda galno. marka intaan cashar guda galno waxaan ka rabaa marka casharkan oo kale saana sameynayso casharka laguma wareero waxa sameynaysa marka hore adoo videoga daawan ba dhegeysan ba fur kadib casharkan adoo fiirinayo mobilka buug ku qoro. marka qorto kadib mobilka inta dhigo dhegeyso sharaxo kadib mobilka halka iska dhig kadib adii buugi markaas adii buug isku soo haro markaas ku celi bes imaad ku hadal bes inta saka badan laakiin dad waa dhegeysana ma qaban kartid be waana qorata marka waa hadaad qorto hore ka xasuusanay. okay waxa bilaabay Aisha laakiin marka hore English baan ku aqrinayaa kadib but fasir doonaa. Aisha waxay tiri do you worship Allah? Ali yes I worship Allah. Is there another life after death? Yes there is, and call it the Doomsday. What will happen in the Doomsday? In the Doomsday, as a reality, everybody will come in front of Allah. Can you mention me something about the grave? Really, when we die, we will bury in the grave. Two angels called Munkar and Nakir will come to us in the grave. Thank you, Allah. So, okay, I'm fishing marka. Aisha waxay tiri, do you worship Allah? Ali al-Hadlaysa, do you worship Allah? Lama abuda. Yes, I worship Allah. Yes. وانا عبد إلهي. how أنا عبد إلهي؟ سؤال ودي مركز. is there another life after death? ما واحد جرتي هذا نول كله. sorry ما واحد جرتي هذا نول كله. دمشق كده. is there another life after death? is there ما واحد جر another life نول كله after death? after كدب death دمشق. yes there is وجرتا and call it waxaa lagu magacaabaa Doomsday maalinta qiyaamaha Doomsday maalinta qiyaamaha. Aisha hadana weydiisay su'aal kale waxay dhahday what will happen at the Doomsday? what will happen maxaa dhici doona in the Doomsday maalinta qiyaamaha? as a reality xaqiiqdii as a reality as a reality حقيقي everybody qof walba will come wuxuu imaan doonaa in front of Allah maalinta Allah hortiisa imaan doonaa maalinta qiyaamaha. markaas leedahay Aisha ma sha Allah hay maxay leedahay marka can you mention me something about the grave? can you mention me هذا kadib yana ka maqlin can you tell me yana ka maqlin tell me meesha isticmaalada waxa isticmaashaa mention. can you mention me mi shay kartaa tell me mi shay kartaa maayno waxa leedahay can you mention me mi shay kartaa something wax about ku saabsan the grave qabriga wax ku saabsan mi shay kartaa xoolo warbixin ku saabsan mi shay kartaa. markaas leeyahay really xaqiiqda when we die markaan dhimano we will bury in the grave waxaan nagula aasi doonaa qabriga. two angels laba malaa'ig kol lagu magacaabo Munkar and Nakir laba malaa'ig nagu magacaabo will come
welcome ayaa inoo imaan doona. Welcome ayaa inoo imaan doona. I will welcome to us ayaa noo imaan doona, nagu imaan doona in the grave, qabriga gudihiisa nagu imaan doona. Aisha waxaa leedahay thank you a lot, mahadsanid, aad baad u mahadsantay, in badan waa mahadsantay. Thank you a lot, in badan waa mahadsantay. Sidoo kale aan ku socday marka, do you worship Allah? Ilaahay ma caabudaa? Yes, I worship Allah. Yes, waan caabudaa Ilaahay. Is there another life after death? Ma waxaa jirto nolol kale kadib dhimashada? Yes, there is, way jirtaa. And call it waxaa lagu magacaabaa doomsday, maalinta qiyaamaha. What will happen? maxaa dhici doona in the doomsday, maalinta qiyaamaha? As a reality, xaqiiqdii everybody qof walba will come wuxuu imaan doonaa in front of Allah, alla hortiisa. Can you mention me? Ma sheegi kartaa something wax about ku saabsan the grave qabriga? Real xaqiiqdii when we die, markaa dhimano, we will bury waxaa nagula aasi doonaa in the grave qabriga two angels, laba malaa'ig kol lagu magacaabo munkar and nakir lagu magacaabo will come to us ayaa noo imaan doona in the grave qabriga gudihiisa. Aisha waxay dhahday thank you a lot, aad baad u mahadsantahay. Ali wuxuu dhahay tu sidoo kale. ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano. ardaya iftiinka ana barna oo akhriskii aqoonta aanu qaadano. edeb laha